السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركان maanta waxaan ku baran doonaa xeerka loo yaqaano div ama division oo lagu kala qaybiyo qoraalada. Casharadii hore waxaan ku soo baranay sida xeerka HTML-ka gooni loogu sameeyo midab ama muuqaal ama qaab loogu sameeyo sida paragraph loogu sameyn lahaa oo paragraph loogu sameyn lahaa midab gooni ah. Laakiin waxaa loo baahan mararka qaarkood in qayb dhan ama dhowr paragraph iyo ciwaankooda iswata loo sameeyo naqshad gaar ah. Marka xeerka div ama div ayaa suurtagal ka dhiga arrintaas. xeerkan siisaba xilli dambe ayuu kusoo biray HTML-ka laakiin wuxuu ka mid noqday kuwa lagu adeegsiga badan yahay wuxuuna bedelay wixii loo aqoon jiray table-ka ama loo aqoon jiray shaxanka ayuu bedelay oo booskasi hadda uu ku jiraa. macnaha waxa weeyaan qayb dhan oo ka mid ah HTML-ka ayaa waxa loogu samayn karaa naqshad ama muuqaalka dhan oo page-ka ayaa loogu samayn karaa naqshad loogu samayn karaa. marka xeerkaas si loo qoraa aan eegno si loo qoro xeerkaas waxaa loo qoraa waxa la sameynaya waxa la qorayaa div waxa inta badan la isticmaalaa oo ugu wanaagsan la isticmaalaa class ama id labadan hore oo soo baranay class kana soo aragnay id kana soo aragnay ma garatay soo ma xustid marka waxa la qorayaa div iyo class ama div iyo id oo id ga marka loo sameeyo magac loo sameeyo ma garatay magacana hadhow loo sameeyo naqshada loo sameynayo waa xusta u meenaya marka waan arki doonaa insha Allah si loo qoro laakiin muhiimadda waxa weeye inaad fahamtid waxa la qorayaa HTML-ka waxa lagu qorayaa div-ka oo la dhex geliyo qoraalkii la rabo ma garatay div oo loo sameeyo id ama div oo loo sameeyo class iyo qoraalkii markaas ayaa magacii classka ahaa ama magacii id-ga ahaa waxa loo sameeyaa naqshadda qaybtaas oo dhan ba marka yeelanaysa qoraalkaas inta isku dhex jira ayaa wuxuu yeelanayaa naqshaddii loogu talagalay oo macnaa div-ka ayaa marka intii la dhex geliyey oo dhan ayaa naqshadda yeelanaysa anagna hadda marka noo soo diyaar casharkeenii waxaan qoray laba qaybood oo laba mawduuc oo casharka aan ku qoray dhinaca saraan kaga qoray waxaan ku qoray noocyada xoolaha nool oo macnaa u bixiyey ciwaan gaar u sameeyey iyo 3 paragraph leh iyo kalluunka oo aan u sameeyey isagana 4 paragraph u sameeyey soo jeedo marka waxaan rabnaa in aan naqshad u sameyno intaasoo dhan isku xiran ma fahantay macnaha qaybtaasoo dhan oo isku xiran oo sameyno naqshad u sameyno qaybtan kalena naqshad u sameyno ma garatay saasaan rabnaa marka see u sameynaynaa waxaa soo diyaarstaa qaybtii HTML-ka ahaa qaybtii HTML-ka ma xustaas waxa weeyaan waxaan sameynaynaa hadda saddexdaan isku sameynaynaa isku gelinaynaa macnaha div marka maxaan niri div-ka waxaa gelinaysaa intii aad rabto inay isku naqshad noqdaan waxaa qoraysaa bishii fur div oo laga soo gaabiyo division markaasaa qoraysaa class ama id marka hadda waxaan u qornaa class baan ka dhigaynaa class waxaa u bixisaa magaca xoolaha ka wixiisaa moogta xoolaha soo ma xoolaha marka waxaa ku xiraysaa meesha aad rabtid inuu ka joogsado intaana saddex paragraph iyo ciwaankooda gelinayna soo ma halkaa ku xir marka dabarkii div kawa garad soo ma kan labaad waxa weeyaan divka labaad qor class ama id ba ka dhig id wax xustaa waxa weeyaan hal meel kaliya lagu qori karaa macnaa magacii la gaarka ahba classka laakiin meelo kala duwan baa lagu qori karaa hal class oo magacyo kala duwan leh macnaa hal class oo magacyo isku mid leh baa ka wadaa marka div id waxaan ka dhigtaa kalluunka horaan u sameynay mid magacaale marka waxaan ka dhigaynaa markaan badda oo kaleeto waxaa ku xirtaa meesha ugu dambaysa oo aad rabtay intuun isku id noqdaan div waa garataan filaya marka hadda waxaan haysanaa intaas waxa weeyaan ishaysata iyo intan ishaysata safe de marka waxaa la soo baxdaa stylekaagii maxaan niri meel hoose imow waxaa qortaa class waxaa loo qori jiray dhibic magacii classka muxuu ahaa xoolaha waa niri soo ma xoolaha meel bannaan bishii fur enter bishii xir dib u noqo taab markaas waxaa qortaa waxaan rabaa inaan background
ka duwan u sameyn backgroundada kaleeto waxaa background color waxaad u bixisaa midabka ka dhignaa midabuna u door waxaan ka dhigaynaa cc ee 00 ayarna wuxuu ku soo baxo arki doonaa kaas waxa weeyaan waa qaybtii xoolaha waan u bixinay markaa class qaybtii kaleeto oo kalluunka waan badda u bixinay waxaan ka dhignay id baan ka dhignay idgiisa loo qoraa calaamadii boundiga la qori jiray markaasa la qorayaa badda meel bannaan bishii fur enter bishii xir kor soo noqo tab saa u banaysata meel waxaan nidhi markaas anagu background ka duwan u samey saan aragna suu kusoo baxayaan background color midabkaa ka duwan u samey marka waxaad tirahdaa 00 EECC midabkaan suu kusoo bixi doona arki doonaa magarat save garee inta imow pagekaagii refresh dheh somaalitid intaasoo dhan waxay noqdeen midab gaara intan oo dhan waxay noqdeen midab gaara noqdeen marka waa laba midab oo kala duwan ba macnaha saddex ciwaanka iyo baragraafiisa sutaa dhan waxay noqdeen hal midab bay yeesheen ma fahanti marka waa ujeedaa macnaha inuu siduu u yahay barnaamij aad u xeeladaysan oo run ahaantii aad u adeegsi badan ma fahanti marka diif ayaa la dhahaa barnaamijkaas wax waa garataan umaynaya sida aad buu sahlan yahay waa aragtaa soo ma waxaad adeegsatay meeshana waxaa ku qortay intii aad gelinaysid macnaha intii isku mid ah aan kan dhinaca u furano saan insha Allah niri waxaan niri xoolaha qaybtii intaan aan waxa gelinay class aan u bixinay diif aan u bixinay class magaca leh magacana waa kana Soomaaliyeed magacaas waafaqsan marata kana maxaa waafaqsan kana waafaqsan kaas waafaqsan Soomaaliyeed marka xeerkaasi waa xeer run ahaantii aad buu sahlan soo jeedid Sooma marka shaqo guri ahaan waxa uu qaataa inaad dhowr qaybood oo ka mid ah bugga aad u kala qaybisid macnaha midabo kala duwan tusaale ahaan ama naqshad kala duwan ama far kala duwan ilaa hadda waxa weeyaan waxaan isticmaalay paragraph kale waxaan isticmaalay color fartan waa laga duwi karaa waxaa la dhihi karaa hadda tusaale ahaan midkaas aan kan sare aan ka duwno fartiisa macnaha hadhino font waxaa ka dhigtaa maxaan ka dhigaynaa font size oo kale tusaale ahaan font size waan ka dhignaa font size ama font keliya u daaso font maxaan ka dhignaa cabirkeeda waxaa ka dhigtaa 12 pixel nooceedana waxaa ka dhigtaa Geneva comma serif xir aanayna soo kusoo baxdo save garee kan ku soo celi meeshiisii garee refresh dheh faryarir baan ka dhignay soo ma jeedi waa nooc kale ah marka beeshka intiisa kale waxaan ka duunay intaasaan ka duunay far nooc kale ugu qornay macnaa ka yaryar fartii ah waa garata ma filaya marka waxa doonaa lagu qori karaa meeshan macnaa haddii lagu samaysay class samaysay classkaas in la waafajiyo un kan unbaa muhiimada naqshadii la doono loo samayn karaa markaas ama midabkii la doono noocii la doono sida doona laga dhigi karaa waa garataan filaya kan siisaan ku celino ka baabiino macnaha intaan save inta imow refresh marka waxaa kusoo noqonaya sida caadiga kusoo noqonaya isku mid bay noqonayaan ma garatay halkan maxaan kusoo baranay labadii cashar oo hore waxaan kusoo baranay class oo loo adeegsado meelo badan oo qoraal ka mid ah iyo id oo loo adeegsan karo hal meel oo qoraal ka mid ah macnaa magaciisku halkii magac hal meel loo adeegsan karo waxaa kaloo markaan casharkan ku baranay div oo ah in lagu kala qaybin karo qayb weyn oo ka mid ah maaragtay qoraalka midab gaar loogu samayn karo halkaasi ayaan ku joojinaynaa casharka maantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq